dhacdo taariikheed oo muhiim u ahayd dhammaan caalamka islaamka iyo weliba inta kale. Kacdoonkii Cabbaasiyiintu keliya ma ahayn kacdoon siyaasadeed oo keenay in xukunku uu ka wareego hal qoys una wareego mid kale, balse wuxuu ahaa sidoo kale kacdoon beddelay fahamka siyaasadeed, aqooneed iyo weliba dhaqaale ee bulshadii xilligaasi jirtay. Taasina waa ta ka dhigtay mid boos ballaaran ku leh taariikhda aadka u dheer ee islaamka. Assalaamu calaykum saaxiibada ku xidhan kanaalka Kobciye, kusoo dhawaada. Fadlan intaadan muuqaalka bilaabin, like, share iyo subscribe ku caawi kanaalkan. Sababtoo ah dhererka mawduucan iyo kakanaantiisa waxaanu insha Allah u qaybinaynaa laba qaybood oo aynu kan hore kaga hadli doono dhacdooyinkii iyo asbaabtii keenay kacdoonkan. Kadib geerida rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxaa xilka uga dambeeyay Abubakar radiyallahu canhu oo 2 sano xilka hayay. Kadib geeridiisina waxaa khilaafada muslimiinta uga dambeeyay Cumar ibn Khadaab. Kadib dhaawacii Cumar Allaah ka raali noqday uu gaarsiiyay Abu Lu'lu al-Majusi, waxa uu dardaarmay 6 guddi ah oo ahayd 6dii saxaabi ee ka harsanaa 10kii jannada loogu bishaareeyay, isagoona ka codsaday inay dhexdooda iska soo doortaan khaliifkiisa ka dambeyn lahaa. Kadib geeridii Cumar waxay guddidii u dooratay Cusmaan ibn Affan inuu noqdo khaliifka saddexaad ee muslimiinta. Dhammaadka xilliga Cusmaan waxaa soo baxay nin asal ahaan Yahuudi ah laakiin muujistay islaamnimo oo lagu magacaabi jiray Cabdullaahi ibnu Saba, kaasoo iska dhigay mid jecel ahlubeydka nebiga, balse dantiisa dhabta ay ahayd inuu fitno ku dhex abuuro bulshada muslimiinta. Waxa uu dadka ugu yeedhayay inaanu Cuthmaan u qalmin xukunka muslimiinta, wuxuuna ku dhex faafiyey fikradiisani magaalooyin waaweyn oo ay ka mid yihiin Basra, Kuufa iyo Fustaad oo ahayd markaasi magaalada looga arrimiyo waddanka Masar. Ugu dambeyntii kooxo badan oo aaminsan fikradani ayaa bilaabay inay is urursadaan, iyaguna ugu dambeyntii soo galay magaalada nebiga ee Madiina. Intaa kadib waxay u yimaadeen Cuthmaan oo u sheegeen dhammaan cabashadoodii, isna si fiican ayuu u soo dhoweeyey uguna muujiyey dabacsanaan si aanay fitna u dhicin, iyaguna dhankooda way ku qanceen. Kadib intaas kooxdana waxay dib uga laabteen magaalada Madiina, hase yeeshee markii ay dhowr maalmood sii maqnaayeen ayay ku soo laabteen magaalada iyagoona wata dhambaal been abuur ah, kaasoo ay ku sheegayaan in Cuthmaan uu u diray barasaabkiisa Masar, isagoona ku amray in kooxdii ka timid Masar la dilo. Dhambaalkana waxaa xagga dambe kaga qornaa magaca Cuthmaan, Allah ka raali noqdee. Markii ay dhambaalka tuseen, Cusmaan waxa uu ugu dhaartay inaanu isagu qorin. Kadib waxay eedi ku wareejiyeen oo ku tuhmeen inuu dhambaalkani diray qoraagiisii Marwaan ibnul Xakam, iyagoona ku amray in loo soo gacan geliyo, balse Cuthmaan arrinka waa ka diiday. Waxay iyana bilaabeen inay si cad u muujistaan wixii xumaan ah ee qalbiyadooda ku jiray. Intaas ka bacdi waxay go'doon in muddo ah geliyeen guriga Cuthmaan, iyagoona ugu dambeyntii ugu dhacay guriga kuna dilay dulmi cad, weliba isagoo akhriyaya aayadaha qur-aanka. Kadib dilka Cusmaan waxay isku raaceen saxaabadu in Cali loo doorto xukunka, inkasta uu ka diiday dhowr jeer, haddana ugu dambeyntii wuu ka aqbalay. Haddii aynu isku soo koobno, Cali waxa uu isna amiirka mu'miniinta ahaa muddo 4 sano iyo dhowr bilood ah oo uu dhammaantood ku qaatay la dagaalanka fitanta faraha badan ee ka dhex dilaacay gudaha dowladdii muslimiinta. Haddaba halkani waa markii ugu horreysay ee la isticmaalo ereyga Shiico oo Soomaali ahaan noqonaya koox, iyadoona kooxdii Cali la safatay la baxday Shiicatu Cali, halkii tii ayidsanayd Mucaawiyana ay la baxday Shiicatu Mucaawiye. Ugu dambeyntii waxaa Cali dilay mid ka mid a khawaarijta isagoo ku sugan magaalada Kuufa kuna sii jahaysnaa salaada subax. Kadib geerida Cali waxaa heshiis u dhex maray Xasan ibnu Cali iyo Mucaawiya ibnu Abi Sufyaan, kaasoo uu Xasan ugaga tanaasulay Mucaawiye khilaafada muslimiinta, waxaana sanadkaasi oo ku beegnaa 41 hijriyada loo bixiyey caamul jamaaca ama sanadkii midowga. Kadib intaanu geeriyoon waxa uu Mucaawiya ka leexday qaabkii hore ee ahaa shuurada, waxaana uu xilka u dardaarmay wiilkiisii Yaziid. Sanadkii 6aad ee hijriyada markii uu geeriyooday Mucaawiya waxaa xilka la wareegay sida lagu ballansanaa wiilkiisa Yaziid, balse waxaa meel walba kaga kacay kacdoon. Madiina waxaa kaga kacay kacdoon ay hogaaminayeen qaar ka mid a carruurtii Ansaarta, balse waxaa si xun u jabiyey ciidankii Umawiyiinta oo hogaaminayay nin lagu magacaabo Muslim ibnul Caqaba al-Marri, halka Makana oo Cabdillaahi ibnu Zubayr dadka ugu yeedhay inay isaga u aqoonsadaan khaliifka sharciga ah. Dhanka Kuufa haddaynu eegno oo ahayd meeshii ay ku noolaayeen dadkii ugu badnaa ee sheeganayay inay ayidsan yihiin Cali, balse aan xilligii uu noolaa hiil iyo hootoona la garab istaagini, ay waraaq ama dhambaal u soo direen Xuseen ibnu Cali ay kaga dalbanayaan inuu u yimaado si ay ula mubaayacoodaan, meeshana uga saaraan baycadii ay hore u siiyeen Yaziid ibnu Mucaawiye. Intiina laga yaabo inaanay garanayn ama aanay hore u maqal ereyga mubaayaco, waa heshiis ama ballan la siiyo qofka xukunka haya si loogu aqoonsado xaakimka sharciga ah. Xuseen Allah ka raali noqday waxa uu aqbalay yeedhmadoodii, isagoo weliba ogsoonaa sida ay u galeen aabihii iyo weliba walaalkii Xasan. Xuseen waxa uu ka soo baxay magaalada Madiina isagoo aan wadan wax ciidan ah, aan ka ahayn dhowr iyo 60 qof oo reerkiisa ah. Intii uu ku sii jeeday waddadiisii Kuufa waxa uu la kulmay ciidan uu u soo diray Yaziid oo uu hogaaminayay Cabdullaahi ibnu Ziyaad
oo ahaa barasaabkii umawiyiinta ee Ciraaq isagoo weliba ciidanka uu watana uu ahaa dhammaantii reer Ciraaq waxaana Xuseen lagu dilay goobta Karbala oo hadda ku taala waddanka Ciraaq iyadoo reer Kuufa aanay wax kaalmo ah haba yaraatee aanay Xuseen u fidin. wixii intaas ka dambeeyay Yaziid waa uu geeriyooday waxaana dad badani ku daba safteen Cabdillaahi ibnu Zubayr isagoona ay yeedhmadiisa soo dhoweeyeen reer Xijaas, Masar iyo Ciraaq. xilligan waxaa sidoo kale soo baxay ninka faa'iidaystay khalkhalka jiray waana ninka lagu magacaabi jiray Mukhtaar Athaqafi kaasoo soo xidhay shaarka Shiicada Cali iskana dhigay mid ka aargoosanaya raggii Xuseen dilay. ninkani waxyaalihii la yaabka lahaa ee uu dadka ugu yeedhay waxaa ka mid ahaa inuu Maxamed ibnu Cali oo ahaa wiilkii uu dhalay Cali ibnu Abi Daalib oo ahaa markaa kii ugu weynaa Cali dhashiisa kadib geeridii Xasan iyo Xuseen uu yahay mahdigii la yaboohay. dadka cuqaasha ama caqliga u saaxiibka ah ee reer Kuufa waxay ugu yeedhi jireen beenaale sababtan darteed laakiin waxa uu dhanka kale ku guulaystay inuu hanto maanka badankii caamadii ku dhaqnayd Kuufa. Mukhtaarkan waxa uu ciidan u diray si ay u soo fakiyaan Maxamed ibnu Cali oo markaasi ku xidhnaa magaalada Maka oo uu haystay Cabdillaahi ibnu Zubayr wayna ku soo guulaysteen iyagoona keenay magaalada Kuufa. si kastaba xaal ku ahaadee Mukhtaar Athaqafi awoodiisu ma sii nagaan kadib markii ibnu Zubayr uu u diray ciidan uu hogaaminayo walaalkii Muscab ayaana awooday inuu jabiyo dilana Mukhtaar iyagoona reer Ciraaq ay diideen inay u gurmadaan sababo la xiriira beenaha iyo khiyaaliga uu dadka ugu yeedhi jiray. dhanka kale Maxamed ibnu Cali oo ahaa ninkii uu Mukhtaar ku sheegay mahdiga waxa uu baycadii siiyey Cabdilmalik ibnu Marwaan ibnu Xakam kadib markii ibnu Marwaan uu ku kaliyeystay xukunka isagoona ka takhalusay dhaqdhaqaaqii ibnu Zubayr. haddaba waxaa laga yaabaa inaad isweydiisid maanta oo dhan waxaynu ka soo hadlaynay Calawiyiin iyo Umawiyiin ishaysta ee xaggee Cabbaasiyiintu sheekadan ka soo galeen. haddaba si aynu uga jawaabno kadib geeridii Maxamed ibnu Cali ibnu Abi Daalib oo ahaa ninkii Mukhtaar ibnu Thaqafi ugu yeedhay inuu yahay mahdigii la yaboohay waxay shiicadiisii ama kooxdii isaga taageersanayd u kala jabeen laba kooxood kuwa aaminay in aanu geeriyoon ee soo laaban doono oo weli isaga sugaya iyo kuwo kale oo wiilkiisii Abu Haashim u aqoonsaday hogaamiyahooda cusub. isla xilligan ninka ugu weyn ee ay ka dambeeyeen tarantii Cabbaas ibnu Cabdilmudalib allaha ka raali noqdee waxa uu ahaa Cali ibnu Cabdillaahi ibnu Cabbaas. caligani waxa uu ka guuray magaalada Madiina una guuray magaalada Xamiima kadib markii uu amray khaliifkii umawiyiinta xilligaasi ee Waliid ibnu Cabdilmalik. xilligan ayayna ahayd soo shaac bixidda in hoggaanka ahlubeytka uu ka wareegay reer Cali una wareegay reer Cabbaas sababtuna waxay ahayd Abu Haashimka aynu hore u soo sheegnay ina Maxamed ibnu Cali ibnu Abi Daalib uu markii geeridiisu soo dhowaatay u dardaarmay in Cali ibnu Cabdillaahi ibnu Cabbaas uu la wareego hoggaanka dhaqdhaqaaqa ahlubeytka. in muddaha kadib waxa geeriyooday Cali waxaanu xilka u dardaarmay lana wareegay gadaashiisa wiilkiisii Maxamed ibnu Cali ibnu Cabdillaahi ibnu Cabbaas waxa uu ahaa nin caqli badan oo cabqariya waxa uuna garowsaday in haddii ay tahay in xukunka laga tuuro hal qoys oo uu la jeedo umawiyiinta ayna la wareegaan qoys kale ay u baahan tahay in bulshadu ay noqoto mid u diyaar ah. sidaasna waxa uu go'aan ugu gaadhay inaanu dhaqdhaqaaqiisa ka dhigin mid kor ah uuna ka dhigo mid sirri ah oo hoos ah. sidoo kale waxa uu doortay inuu halgankiisa saldhig uga dhigo dhulka Khuraasaan oo maanta ka kooban wadamo fara badan sida qaybo ka mid ah Iiraan, Afghanistan iyo Uzbekistan. sababaha uu Khuraasaan u doortayna waxay ahaayeen laba sababood. ta koowaad oo ah in fikirka ah in ahlubeytka nebigu xaq u leeyihiin xukunka si fudud looga dhaadhicin karo sababtaa waxay soo shabahaysaa sida boqorradoodu marka ay dhintaan ay xilka uga dambeeyaan qof ehelkooda ahi. ta labaad ayaa ah in reer Furus ay ahaayeen dad xadaarad taariikhiya lahaa hase yeeshee umawiyiintu ay ula dhaqmeen sida ninka iska lihi uu addoonkiisa ula dhaqmo oo kooda carabka ah ee dhex jooga ayaa amarka lahaa halka iyagana aan loo ogolayn xeelalka sare ee dowladda. hadal taariikhda galay oo uu yidhi Maxamed ibnu Cali mar uu la hadlayay taageerayaashiisa una jihaynayay meesha ay saldhigga ka dhiganayaan waxa uu yidhi Kuufa iyo madowgeeda oo uu dabcan ula jeedo dad ku nool miyaad sheegaysaan iyagu waa kooxda Cali iyo tarantiisa. Basra iyo madowgeeda miyaa iyagu waa Cismaan kooxdiisii oo ay diin u tahay in dagaalka laga kaaftoomo oo waxay ku odhanayaan Cali oo noqo kii la dilo ee ha noqon dilaaga. jasiiradda Furaad miyaa iyadana dadkeedu waa reer baadiya iyo muslimiin ay akhlaaqdoodu tahay tan nasaarada oo kale. isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu yidhi Maka iyo Madiina waxaa ka awood batay Cumar iyo Abubakar. dhulka Shaam isna dadkiisu waa juhalo cadaawadi ka buuxdo waxayna u adeegaan oo adeecaan keliya reer Abi Sufyaan iyo dhashii Marwaan oo ula jeedo reer Bani Umayya. laakiin waxaan idinku ogahay Khuraasaan sababtoo ah dadkeedu waa badan yihiin maankoodu waa saafi laabtoodu waa mid caafimaad qabta sidoo kale ciidankooda waa mid jidhkiisu dhisan yahay saxmadooda iyo codkoodu sarreeyo. waxaan idinku soo gabagabeynayaa buu yidhi anigu waxaan ku niyad wanaagsanahay bariga iyo weliba dhanka faynuuska caalamka oo yacni ula jeedo dhanka qorraxdu ka soo baxdo.
intaas ayaan ku saafmeernaa muuqaalkan. Fadlan ha ilaawina like, share iyo subscribe ka caawisi channelka. Fi amaanillah.